dawlad hubaysan ayaa la sheegay in magaalada Boorama saaka waa berigii inay rasaas ku rideen saldhigga dhexe ee magaalada Boorama iyadoo arrintaasina la sheegay in aanay cidina waxba ku noqonin ciidamada booliskuna ay rasaas ugu jawaabeen gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ugu horreynna waxa aan weydiiyey sida wax u dhaceen waxa ka dhacday rasaas saldhigga dhexe kadib waxay noqdeen niman iyaga oo ciidan iska sufaa oo saldhigga rasaas ku riday kadibna ciidankii saldhigga joogaan iska dafaaceen wayna baxsadeen waxaa la wax dhimasho iyo dhaawactoona ma dhicin iyagina waa la baxsaday ilaa xadkaan isla gaadhay ilaa tuulooyinkaas oo dhan baan maray buurahan maray marba meel bay carareen qaar ka midana imika wadaya ciidanka Itoobiyaanka oo xadka miday iyo soo gelino iyaguna si fiican loo yimi waxay qabteen labadina way hayaan wayna soo gudbinayaan insha Allah maxay yihiin nimankani ma oran karo imika cidaas yihiin haddii laba ka mid la hayo intee ku qiyaasteen iyaga guud ahaantood dhinaca kale taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland Faarax Maxamed ayaa u sheegay warbaahinta ruux yar oo qasoodayaala ayaa rasaas ku soo riday saldhigga dhexe Boorame ciidamada booliska ayaa si kasoo uga hortagay nimankii eeyaday ilaa xuduudda Itoobiya ay galeen eeyanayay haddana gobolku waa nabad weeye wax dhibaato kama jirto nimankiina xadka Itoobiya ka gudbeen qaarna waa laga qabtay waxay wareeraan dib ka soo sheegtona xaaladdu way degan tahay gobolkuna waa nabad wax khasaare oo ka dhacay oo ciidanka soo gaadhay